وعامو مرول بقى عندي بقول نقضه أما بقى عن ككر لعطوك مئة تحاها ترى يرهاج أوجاس ورفان نجسو جاري وحن كلكم مع معان إيه مرتهر له تدي عد أدن لو يوتجي أيام أسر الشيخ فلاه تدع والبوحة إجا صباحا معنا عصب أو أول إجا ديمونا سجت أول جيبة كدوجنا ماذا يمان كبا وحن أروح حافظ سميدا اسكو سرقوين ميرسيرا إيو حلاشا وناج إريرا كوهابون كل بأوتيدة ومانتا كمان صونايو markaas baan u garaabaa Soomaalida qarnigii 19aad ee hormuudnimadiisa u kala beeri weeday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay ragoogaas wuxuu inooga tagay maansa qurux iyo quruudba isku darsatay tixo ay midaba ujeeddo gaar ah xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada taal waxaa ka mid ah qaar jacayl ah oo haddaanay iyagu jireen maansadeennii hore ay dareenkaasba ka maraan lahayd waxaa iyagana laga hayaa tixo xalaacad ah kuwo baroor diiq ah tu ammaan faras ah iyo weliba kuwo uu ugu halceliyey maansayahano kale oo ay isqoomeen ujeeddooyinkaas oo badidooda la wada maqlay ka sokow raaga wuxuu tiriyey geeraar uu geela ku tilmaamay kaasoo aan filaayo bulshada Soomaalida inuusan si baahsan ugu wada dhex fidin sida uu u tirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u fiirsato waa geeraar meelo dhowr ah kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geela ee ay suugaanta Soomaalidu hodanka ka tahay ammaan qayaxantiisu ma ahe wuxuu si kooban u soo bandhigayaa wax dheefka xaddiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa Soomaalida raacatada ahayd ee xilligiisii iyo tii ka dambaysay labadaba habka uu soo jeedinayo iyo qayb walba weydiinta ashqaraarka huwan ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay inaga timaado iyada oo gabayaagu aanu afka inoogu tirayn dhinaca kale maansayahanada Soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siiyaan baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu qooqan yahay tilmaamaha la yaab kale ee uu la soo baxo hidahaas isaga raaga uu ka bayray tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo wax dheefka lagu qabo awrka gurgur gaadiidka aan la'aantiis qoys reer miyi ay dhaqmi karin abaarna ka soo doogi karin dhammaadka tixda ayuu inagu xusuusinayaa sida awrka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanba sidoo kale wuxuu marahayga raaga ku kariyeystay geeraarkan uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafsadeed ee maanshaysa mar walba oo uu milicsado kalimada horweynka iyo haleeladaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kasoo ugu qabowdo waa beriga marka nirgaha ooda la isaga qaado ee uu ololkeedu isu baxo wuxuu yidhi gucgucdeeda arooriyiyo isku gaagixinteeda away gooha wanaataay gurxankii habilaad cirka oo gadawaamay dayaxoo galka diiday dhulka oo gasariiday dhirta oo gabalkeed iyo garaskiiba har waayey oo xanagaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne awgeeda hallaacaay xumbadii gadfanay hadduu giilku dareero oo barqin loo gambaraasho oo arina boodka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashirkoode away reera gobeeye ay xeryihii gingina gabxaddaada liyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto korankeeda la gaato haddaan soo garba duubo oo ganka loo kabadeeyo ambaalkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xarga loogu gunto in gadaan liya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardhaalay nirigtii iyo midka gaadha tolay iyo ka gamuunka daleeyiyo gaalleefay mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree awa gaatamihii dhegaystayaal geeraarkii waa kaa waxaase ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meelisyadii uu ugu dambaysiiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree away gaatamihii aad baad u mahadsantahay idaaja